sanad kasta bisha Dulxij tobankeeda waxay muslimiintu u dabaaldegaan ciida Carafo dhamaantood meel kasta dunida ka joogaan sidoo kale maalintaas waxa la gowracaa neef laakiin wali ma isweydiisay sababta maalintaas loo faray in la qolo ari maanta waxaan ka hadli doonaa qisadii Nabi Ismaaciil alayhi salaatu wasalaam نبي إسماعيل عليه السلام وحوها عورتك نبي إبراهيم عليه السلام خليل الله وحو صدحي تمسنا كوي هي نبي إسحاق سيدو كله هو يدي وحلولن شري هاجرا مركو شيء نبي إسماعيل عليه السلام الله يا مركلو بشاري نبي إبراهيم إنو دون ويل كسر له إسحاق عليه السلام وحنا الله دونتا مرودي سوين إسارة الله بركان دون اللي بدا ويل wuxuu dhabarkooda ka saari doonaa faracyo ka faracma iyaga ibn Abbas Allah ka raacnoqday wuxuu sheegay markuu Nabi Ibrahim xaaskiisii Haajara iyo wiilkiisii Ismaaciil uu dejiyay dhulka barakeysan ee Makka isla markaana iska tagay inay ka dhamatay cuntadii iyo sahaydii ay haysteen kadib Haajara waxay u caaratay dhanka buurta Safa iyadoo ka eegaysa cid meesha maraysan haddii dib waxay ku soo noqotay wiilkeedii oo joogay dhinaca kale buurta ee Marwa sidaas ay 7 jeer sameeyay mar wuxuu caraysay buurta Safa marna wuxuu caraysay buurta Marwa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wax laga soo wariyay inuu sheegay markay soo wareegaysay labada buurood oo marba mid uu caraysay in markii dambe labadii buurood dhexdooda ay ka maqasho cod kadib waxa la soo diray Jibriil alayhi salaam waxaanu Jibriil weydiiyay cid ay tahay waxaana ku tiri waxaan hay xaaski Ibrahim alayhi salaam Jibriil ayaa hadana weydiiyay cid uga tagay Ibrahim kadib waxay tiri wuxuu looga tagay Ilaahay kadib Jibriil ayaa ku jawaabay Allah ayaa nagu filan oo Allah nima dayacayo kadib waa uu iska tagay laakiin intaan ka tagin garabkiisa ayuu dhulka ka sii jaray waxaana ka soo burqatay biyaha soo dhaho Zamzam kadib farxadii ay Haajari way la doonantay iyadoo markaa biyana celcelinaysa biyihii maalintaas biloomay hatta laan waa kuwa socda waana biyaha loo yaqaano Zamzam waxaana Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa laga soo wariyay wuxuu dhahay Haajari Allah u naxariistay dan maalintaas biyaha qaban lahayn maanta noqon lahayn isha soo dhulka korkooda lagu laaya kadib biyihii way cabtay saaray oomkiina ka bay wiilkeedina way noojisay kadib Jibriil ayaa ku dhahay ha ka baqin inuu dayac ku yimaado halkan waa guriga Alle wiilkan dhabta ku haysid ayaan dhisi doonaa markii bishaarada ugu bishaareeyay ay iskaga tagay kadib halkaas ay iskaga noolayeen Ismaaciil iyo hooyadii in muddo ah ibn Abbas rahimahullahu ta'ala ayaa dhahay maalin ay soo mareen dad safar ah dadkaas oo Carab ah oo ka soo jeeday qabiilka la dhaho Jurhum waxay ka soo jeedaan reer Ahqaaf waa durriyadii Nabi Nuux alayhi salaam kadib qoladii safarka ahayd ayaa meel u dhow soo agdigtay halkay joogeen Ismaaciil iyo hooyadii kadib qoladii safarka ahayd ayaa arkay shimbirtaas badanka lagu yaqaano meesha biyaha kadib waxay tabagaceen shimbirtii iyo halkay ku socoto kadib waxay shimbirtii geysay Nabi Ismaaciil iyo hooyadii kadib waxa ku dheen biyaha ma kula cabna oo ma kula degnaa waxaana ku jawaabtay ha laakiin ceelkan ana iska leh kadib saas ay ku degan qabiilkii Jurhum ayaa qabiilkoodii kale oo joogay meel aan biyo lahayn ugu yeedhay halkan biyaha leh kadib way soo guureen dhamaantood waxaan camireen magaalada Makka saas ay kadib magaalada Makka ku noqotay magaalo weyn Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ducada ka aqbalay Ibrahim oo ducada soo ahayd Ilaahay uu yeel dad ay weeshadaan Nabi Ibrahim alayhi salaam markii soo boqon jiray si uu xaalkooda u ogaado Nabi Ismaaciil alayhi salaam markii weynaaday ayaa Nabi Ibrahim rajal ku tusay isagoo birinaya ama gooracaya wiilkiisii Ismaaciil kadib Nabi Ibrahim alayhi salaam ayaa wiilkiisii Ismaaciil u yimid waxaanu ku dhahay wiilkayga Ismaaciil waxaan ku riyooday anagoo ku birinaya ama ku gooracaya kadib wiilkiisii Ismaaciil alayhi salaam ayaa ku dhahay aabbo sidii lagu amray samee kadib waxa la sheegaa inuu u geeyay xaaskiisii Haajara oo ku dhahay wiilkeena Ismaaciil isoo inuu soo labis waxaan geeyaa meele uma sheegin inuu soo beeranayo uma sheegin soo goorayo markii uu soo labisay isoo inuu soo qorxiyeen ay tagay meel ka baxsan magaalada kadib dhabanka ayuu dhulka u saaray markii saan uu qabtay uu gowdaca ayuu Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ismaaciil ku furtay weyn kadib intuu weynaa ayuu Nabi Ibrahim alayhi salaam dareeyay kadib sidaas ayuu Ilaahay ku badbaadiyay Nabi Ismaaciil alayhi salaam halkan wax waajib ku noqday in eed kasta Carafa la bireeyo Nabi Ismaaciil alayhi salaam uu weynaaday waanu koray waxaana qof laga jecel yahay meesha degan ama deegaankooda kadib wuxuu Nabi Ismaaciil alayhi salaam ka guursaday reerkii la degnaa ee Jurhum kadib Nabi Ibrahim alayhi salaam ayaa maalmaha kamid ah soo boqday wiilkiisii Ismaaciil kadib wuxuu yimi wiilkiisii oo aan joogin guriga oo joogto xaaskiisii kadib xaaskiisii ayuu ku dhahay Ismaaciil mee waxaana ku dhahday uu maqayay oo xuno doono cunto kadib wuxuu ku dhahay xaalkiinu suu yahay kadib waxay tiri baaba iyo balan iska jirnaa oo calaa badan ay sheegtay kadib ayuu ku dhahay waayay ugu salaam walina isku sheegin inuu yahay aabihii markuu ka sii tagay ayuu ku dhahay waxaad ku dhahdaa ama waxaad ka garsiisaa dardaaranka ah inuu iska bedelo albaabka gurigiisa kadib waa iska tagay kadib markuu soo noqday Nabi Ismaaciil ayay xaaskiisa u sheegtay odaygii yimi iyo astaamuu lahaa kadib waxay tiri wuxuu ka sii tagay farin ah inaad iska bedeshid albaabka guriga kadib isla halkii ayuu ku furay gabadhii ila albaabka la bedeliyo ma albaabka saxda ah ee waayadee kadib Nabi Ismaaciil alayhi salaam wuxuu guursaday gabadh kale adna maalin kale ayuu Nabi
ibraahim calayhi salaam u yimi ismaaciil calayhi salaam waana ka waayay gurigii oo xaaskiisii cusbaa ayaa joogtay kadib wuxuu ku dhahay ismaaciil mee kadib wuxuu ku tiri wuxuu noo doonay cunto kadib wuxuu ku yidhi xaalkiina suu yahay kadib waxay tiri waan barwaaqaysan alxamdulilah waa maashaallaysanay waa shuk noqday gabadhaas kadib wuxuu yidhi waa igu salaam waxaanad ku tiraahdaa albaab gurigaaga adkayso kadib markii soo noqday nabi ismaaciil calayhi salaam ayuu sheegtay odaygii in dardaaranka ugu tagay kadib isagoo fahmaya farinta waabiga tagay ayuu ku dhahay albaabka la sheegayo waa adiga ee adkayso gurigaaga kadib mar kale oo saddexaad ayuu nabi ibraahim calayhi salaam wiilkiisii ismaaciil calayhi salaam soo baaldoonay ugu yimi laakiin marka saddexaad waa sahleen waxaa nabi ibraahim calayhi salaam wiilkiisii ismaaciil u sheegay inuu alla amray amaan la soo faray inay dhisaan guri waa kacbada kadib kacbadii ayay dhiseen markii kacbadii dhameeyeen ayaa kacbada ka dhibnada dhagax ku raataa dhagaxaas ay ka bishaan baadi doona laakiin dhagaxaas uu yahay mid dhulka korkiisa yaala jibriil ayaa xagga sare ka soo degay waxaanu buuxiyay dhagaxaas oo ah xajarul aswad kadib jibriil calayhi salaam ayaa baray qaabka loo xajiyo iyo qaabka xajka loo gudanayo nabi ismaaciil calayhi salaam wuxuu dhintay isagoo 137 jir ah halkaasi ku dhamaatay qisadii iyo taariikhdii nabi ismaaciil calayhi salaam intaas oo imaadkooyga barnaamijkan inta ku kulmano barnaamijkan wax naga tagnaa sidaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وحي من القصص التي دلت على الله الجليل قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل تالله ليس لها مثيل وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل